sida ogtihiinba waxaa jila galay lockdown aad loo adkeeyay. waad maqlaysaan mootada guuxeeda. waxaad u malaysaaba inay aniga igu dan leeyihiin marka ay leebarka qabanayaan mootada, laakiin waxyaala qofka qaban doona macnaha haddii lagu soo rogay ganaax oo lagu yidhahdo haddii lagu arko magaalada adigoo face mask la'aan ah waxaad mutaysan doontaa 2,000 oo ringgit oo ganaaxa. 2,000 oo ringgit lacag usoo dhada maahan, waa $500 oo ay u dhigantaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. waa walaalkiin Maxbuub. YouTube channelka aad daawanaysiina waa Maxbuub official. fadlan hadday tahay booqashadaadii koobaad subscribe waa iga codsi, sidoo kale like nagu dhiirigeli, u share gareena saaxiibadaada kale si aan u helno asxaab adiga oo kale ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. intaas haddaan kasoo gudbo, maanta maxaan idin wadaa asxaabta. waxaan kale oo ka cududaaranayaa in haddii uu idin soo gaaro dhawaaqa mootada oo kale ama gawaarida waxa la mid ah, sidaad ogtihiinba waxaa jila galay lockdown aad loo adkeeyay. waad maqlaysaan mootada guuxeeda. waxaad u malaysaaba inay aniga igu dan leeyihiin marka ay leebarka qabanayaan mootada, laakiin sidaas ma ahan. sidaas xalka waa ka duwan yahay. waxaa iska jira Malaysia haddii aan joogno mootooyinku wax iska caadiya abay noqdeen dhawaaqoodiyo. xataa laamiga caadiga markii aad joogtid waxaad maqlaysaa dhawaaqeeda oo zaa'id ah oo aad u malaynayso in lagugu dan leeyahayba markii aad laamiga goynayso ama aad dhaafto oo kale. leebarkeeda bahasha zaa'id waaye. waxaa u malaysaa codka inay kusii dareen baayo ama ay ugu talagaleenba. marka haddii codkaas uu idin soo gaaro mootada maaragtay ka raalli ahaada, laakiin dee annaka qorshaheenu ma ahan inaan mooto dhegaysano. waa in codkayga si faseexa adinku aad u maqashaan oo si faseexa uu idiin soo gaaro. taas waa ka cudurdaaranayaa. macnaha waa iska fiican tahay dadka inaad haddii macnaha khalad yar maaragtay ama videogaaga laga arko inaad apologize ka bixisid. taas halkaas uga soo gudbayaa. taas haddaan halkaas uga soo gudbo, muhiimadda aan usoo dhaadhacno waxaa waaye waxaan ka hadlaynay maanta waqtigan hadda lagu jiro. waqti xaadirkan waxaa jira MCO, dalka xaalada lagu soo rogay. ogaasna wax kaleeta ma ahan, waa coronaviruskii macnaha jiray oo macnaha la adkeeyey waay. macnaha waa la sii adkeeyey. macnaha sidii awal uu ahaa si ka bedelan macnaha la sameeyey. macnaha awal dhaqdhaqaaqa badnaa, laakiin hadda dhaqdhaqaaqa aad iyo aad loo yareeyey. waxaa waaye stay home waaye, dadku inay guryaha joogaan. taas macnaha wax kalena looga badan lahaa ma ahan in dadka lagu dhibaayo, ma ahan in dadka lagu lugoynayana ma ahan, laakiin macnaha waxa waaye dee in maadaama xanuunkii uu marka dambeysa sii badanayo, control in la sameeyo oo laga hortago. sidii lagu hortagi lahaa falkeeda macnaha lagu jiraa. waxaan rajaynayaa dadku inaysan dib u arki doonin. dee qof kasta risaaqadiisa ilaahay subxaana watacaala qoray. awalba corona hortiisa la noolaa dabadiisa haddii ahayd wixii ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay baa noolaan doona insha allah. laakiin muhiimadda keliya waxay tahay in awaamiirta dowladda ay soo rogto kale in la qaato oo lagu dhaqmo macnaha. taasna waa wax dadkana u roon. dee haddii inta la soo rogo amar la yidhahdo ha lagu dhaqmo waxun ma ahan. waxaa fiican dadku inay ku dhaqmaan. haddii qofka macnaha uu ku dhaqmi waayana waxaa jira shuruuco qofka maaragtay hadhowta laga rabo ama waxyaalo qofka laftigiisa qaban doonaa jira oo ah waxyaalo qofka qaban doona macnaha haddii lagu soo rogay ganaax oo lagu yidhahdo haddii lagu arko magaalada adigoo face mask la'aan ah waxaad mutaysan doontaa 2,000 oo ringgit oo ganaaxa. 2,000 oo ringgit lacag usoo dhada maahan, waa $500 ay u dhigantaa. marka midhaa ninkii ka bixi kara oo lacagtaas haysta baa magaalada soconayo wareegayo. ninkii tabartiisa og oo aan haysanna insha allah waxaan rajaynayaa inuu gurigiisa joogi doono. marka all nag Soomaali haddaan nahay waxaad u malaysaa dadayoogaas kale inaan xoogaa ka indha adag nahay markii loo yidhaahdo waxyaalaha lasoo rogo oo kale awaamirta dadku inaysan badanaa ku dhaqmin. marka waxaa uga digayaa dadkeena Soomaaliyeed oo kale inaysan maaragtay samayn. haddii amar lasoo rogo amarka inay qaataan oo ku dhaqmaan. taasna annaka idan noo tahay, dadkayga idan u tahay. waxaan u badbaadaya maxaa la dhahayaa hantideennii. waxaa badbaadaya macnaha lacagtiisa qofka laga qaadi lahaa ganaxa ahaa. waxaa kale oo qofka u mutaysan karaa xabsi. marka taasna wax faa'iida nooguma jirto.
in qofkii la doono xabsiga laga raashay noqonaysaa. marka waxaan idin leeyahay videoga hadda halkan ma soo gaarteen asxaabta like saara, sidoo kale u share garaya saaxiibada si aan u helno saaxiib adiga oo kala ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. fikirkana comments-kiina kusoo dhiiban kartaan. aad waana videogan iyo videoga xiga iyo is aragti dambe oo xiiso leh.